dhalinyaro badan aan fursad u helin in 25 sano ay aadaan goobaha waxbarashada ayaa xilligani waxa ay xaadirayaan jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho. ku dhawaada 25 jaamacadood ayaa xilligani ku yaala magaalada arday aad u badan ayaana wax ka barta waana horumar la gaaray in jiil aad u badan ay wax walba ay xaadiraan jaamacadaha iyo iskuulada hoose dhexe iyo sare. Dr. Abdulqaadir Abdiraxmaan Xaaji Aadan waa gudoomiyaha muasasada jaamacadda Jazeera. waxaa la oran karaa waagii dagaaladu ay jireen mabay jirinba qof iskuul u kala iska daa jaamacade qof iskuul primary ama secondary u kala ma jirin. iskuulaadka magaalada ka jira hal iskuul oo yaa dhiganaya yaa imaanaya la lahayo. laakiin maanta runtii farqi weyn halka 2000 oo arday hal jaamacad u soo kala hayaan maxaad u maleynaa markuu kale iskuulaadka iska daa sanad kasta waxaan u maleynaa 10000 oo arday soo qalin jibis Muqdisho kaliya oo ku jirin gobolada iyo degmooyinka ku jirin. laakiin Muqdisho kaliya 16 degmo ayaa wax ka soo qalin jibisay 10000 oo arday. marka wax farqi weyn ayaa jiraan dhihi karaa aniga. jaamacaddu waxay bixisaa kulliyad badan oo asaasi ah oo ay ka mid tahay caafimaadka, engineeringka, computer science-ka, economiga, nursingka, MLT, agriculture, veterinary, يعني كلية بدن runtii wax badan way ku taameysaa oo hadda waxa miiska noo saaran inaan furno teacher training center waayo macalinku wuu duqoobaya wuu waayeelobaya wuxuu u baahan marka macalinku macalin bedelo u baahan yahay waxay marka u baahan tahay macalinkuna ma ahan macnaheedu maadadana bartay macalin noqon kara ma aha in macalin la noqdaahu waa macna kale in maadada la bartana wax kale waa. marka waxa hadda miiska noo saaray inaan furno teacher training center meel macallimiintu ay ka soo baxaan oo macallimiin wax barta la helo. ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho ayaa aad ugu faraxsan in gudaha Muqdisho ay wax ku bartaan. waxa u sababay ila tahay in oo dadku ku soo baraarugeen ahamiyadda waxbarashada ee leedahay waalidkuna ay garteen in ay caruurtooda ku baraarujiyaan in ay iskuulada u diraan. وانا الحمد لله إن ضدك أو نقدان ضد أو أخون له. من الصديق رواقي هذا دجال أكل ودن كسومر مقت هو جامي كوحدي دجال كله ومعنا بدل له ودن كسومر واقع صح برشة وايرت هذا جامعة ذي هبطي أرضي جامعة هذه سنة أدي وبتين من الصديق رواقي دجال هذا سامين كويلة وح برشة حتى أنا أرضي إني بطان وحسامين كويلة هاي نبض جرت من الصديق horta waxay ila tahay dadka Soomaaliyeed mar walba waa strugglers waa dad oo maxaan ku raada struggling ku jira hadda way badatay waxayna ku badatay dad badan oo maqnaan jiro kala way imaadeen dadkii wadamada dhawaa jiray kuwii dibadaha jiray marka populationka wuu kordhooyaa saasaan isleeyahay. ugu dambeyntii waxaa jiro qofka ama gabadha markay jaamacad ka baxdo ama wiilka markuu jaamacad ka baxo wiilka wuxuu isku dayay inuu wadankii la rabay inuu wax u qabto ee dadkii inuu wax u qabto inuu wadankii ka tahriibayo dal aan dalkiisa inuu aadayo gabadhan waxa la dhihi karaa iyadan sidoo kale tahriibka iyo ama marka la guursado oo kale inay guriga joogto oo wixii soo baratay ilowdo marka adiga ma ku tala jirtaa markaad wax barato inaad dalkaaga wax u qabato mise hamigaagu wuxuu yahay dalkaaga inaad ka tagto dalka kala tagto oo tahriibto ama marka lagu guursado inaad guriga iska joogto. horta markii oo jaamacadda laga baxo khasab arday walba raadsanaya inuu maadaama hadda baaja dhameysan moogta bachelor wuxuu raadsanayaa inuu sii kordhiyo marxaladiisii ama indii haraadsado ama PhD ha sii kordhado khasab uu baxayaa laakiin ila ma aha arday jaamacad ka baxay inuu tahriib iyo waxaas aadayo ma u baahna inuu tahriib markaas waayo wuxuu haystaa shahaadadiisii waxa ku filan kaliya inuu safaaradda tago oo fiisooyin qaato aniga waa haminayaa marka aan dhameey inaan meel tago wadanka dibadiis aan tago oo soo sameeyo markaas MD oo PhD ku soo daro. aad bay u soo bateen waa u jeedaa fasalka aad si loo fadhiyo iyo cadadka tirada iyo ardada soo baxaysa marka waxaan leeyahay lambarka ardadii uu kordhay waxbarashadiina way siyaadeen wana horumartay. maxaa u sababa waxbarashada inay ziyaado? waxaa u sababa inay waxbarashada siyaado ardadii iyo dadkii ayaa wax fahmay ayaa waxa loo sameeyay waxay u fahmeen كله وحي أركين نظام كوحبرشة يقيم يقايا يهرمرك قفك هدو وحبرت أولياء يمشي وجارة وأركي مركا وكل نيت كجو ذاتك إني وحبرتان. ملصدي كرا دجالة ودلك مجالة مقدسة كده عجري أي سبب وها
in ardayda xaadiraysa goobaha waxbarashada inay yaraadaan haatan isbedel jiro nabad jirto inay ardayda ay kordhaan taa ma la soobayn karaa aad iyo aad waa la sababay karaa waxaa dhici jirtay in maalin uusan jiri jirin hal arday oo waxbarasho u baxa markii dagaalada oo qof qaxaayo qof cararayo qof meel wabiga kasoo dhaca laakiin hadda saaka guriga kasoo baxay in wax dhimaana arag meeshaan ay imaada si nidaam wax u barnaa si nidaam u laabanaa marka waa ammaankani sabab buu ku leeyahay in wax la barto isna wuu noo fududeeyay in wax barano mustaqbalka maxay higsanaysaa waddanka maxaa kaga aadan wallahi waddanka waxaa iga aadan hadda maadada aan barano waa public health preventing in aan dadkan ka difaaco cuduradan iyo suntaan iyo balaayadan lagu soo daadinaa in sidii isaga ilaalin lahaayeen iyo sidii u horumari lahaayeen caafimaadkooda iyo nadaafadooda guud ahaan wagaag waxaa jira arday jaamacada ka baxay wadankii ka tahriibaya dalaan dalkooda in aaday badaha ku dhimanay ma laga yaabaa ardaydaasi wadaday mareen oo kale inaad marto absolutely no ma laga yaabo inay dhacdo in waayo dad baa isugay dad baa wax baray waddanka isugay waalidkii baa isugay ardaydii wax la soo bartay iyo kuwii iga hooseeyay iyo kuwii